بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا موضوع مانتا كاسو آن uga hadli doono arinta ku saabsan askariga haramcadka ah iyo sidoo kale yarka lagu magacaabo Zakariye Timacde kaasoo wariye ka howlgalo saxaafada ah raggan dhalinyarada ah buuqooda ama dagaalkooda iyo isu jawaabistooda waxa ay bilaabatay kadib markii la dilay yar lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Alamka yarkaasoo lagu eedeeyay inuu askariga dilay waxaana sidaa tilmaamay ninka lagu magacaabo Zakariye Timacde halkaas ayayna doodoodii ka bilaabatay halkan ka daawo askariga iyo jawaabihii uu ka bixiyay eedeentani bismillaahir rahmaanir rahiim Soomaaliya soo dhawaada waxaan rabaa arin muhiim ah ka hadlo sida sawirkan ka arkaysaan waxa ay soo qaateen in lagu magacaabo Hebelo Timacde Zakariye Timacde waxaan uga digayaa ninkaasiti inuu ka daayo aflagaadada u geysan ciidamada qaranka waynu ognahay inaad ciidamada qaranka ku soo qaadatay inaad aflagaadiso lacag wax kasta aan koreynaa laakiin waxaad ogaataa waxaan u tababaranahay cadowgeena dibadda joogmeedka dalka joogo inaan intaba gacanta ku soo dhigi karno waana awoodnaa saacad gudaheeda inaan ka soo dejino ardayda international airport laakiin waxaan ilaa doon ku xusmeenayna inaan adeero ka caliyo saaqada ha ka raadinin lugaha hooyada dhex bartamahooda ha ka raadin waddankaagu hooyo cid kale ma jirto laakiin haddaad ka deeyi weydo ciidamada Soomaaliya aflagaadada u geysanayso wallahi waxaad moogtaa wixii kugu dhacdaa isku dhig waa digniin intaas dil laga soo gudbo ninka waxa soo qaatay sawirkiisa sadka arkaysa wiilkaanay tidinta loo naxariisto midda kale wuxuu dhaay ciidamada oo sidaan saana ciidamada cabsan horta ciidamada hala kala qaado ciidamada sida gaarka u tababar haramcad sidoo horta balwada ka xaran markii la qoranay balwad asgariga looma qoro cid kasta way ogtaa xafiis kasta meel kasta lagu geeyo iyo shacabka xataa ogeey wax balwada looma qoro tan labaad waxay tahay waa ciidan nidaam leh sharaf leh ixtiraam midkood oo dib geystay isla daqiiqada la soo qabtaa war Soomaaliya waxa ay kaga digayaa dadkaanita waxyaabo soo qorqoray oo ciidamada qaranka u taagnay inay dalkooda difaacaan ceebaha iyo dulmiga raadada ku raadinayo war hooy ka jooga tabarkan uu sareeya Interpol shaqeeyo daqiiqad gudaheedana wadana ku soo qabay war Hebelo Timacde oo ka joog oo kuwa la midka oo ka joog xitaa lacagaha dadka ku siiyay dadku fankar wax dhan waa la soconaa waan awoodnaa inaan xaniyaaga gacanta ku haynaa waan awoodnaa inaan ka jarno xaniya waan sameyn karnaa laakiin ilaa hadda waan ku xusmeenaynaa war Soomaaliya markaati ka noqdo ninkaan sawirkiiga soo qaatay marxuum ka dhintay cidiisa wuxuu doonayaa inuu aniga qoortii galiyo ciidamadeena qoortii galiyo marxuum ka dhintay Allah naxariisto waxaan maqlay inay ciidamo isku dhaceen ma ahan ciidan kasto oo meel marayo inay ciidamada haramcad yihiin ciidan haramcad xerooyin joogan iyo shaqooyin meel u gooniyo oo cayma bay joogan meel kasta ma daadsano digniin dadka ku foogan sharaf dilka iyo dhibaateynta ciidamada qaranka waana awoodna dalka dad ka maqanta istiri dalkii waad ka tagtay Interpol ba shaqay daqiiqad gudahood waru tababaranayna ku soo xareeyay ay waliba xabs dheerna ku dirno kuna qorno ka joog waa digniin Soomaaliya markaad ka noqdo idinkeeda ku markaateynayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha Allah waxaan rajaynaynaa in cadaalad uu helo yarka walaalkeen ah ee lagu magacaabo Alamka marka insha Allah waxaan idin leeyahay gabagabadii mowduuciga weeyaan ugu dambeyn waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh